Magacaygu waa Salmaan. Waxaan ahaa 18 jir markaan arkay gabar cusub oo ka soo baxday galaaskeena. Run ahaantii kama jeesan karayn, waayo weligay ma arag ruux sidan oo kale ah. Waxaan isku dayay inaan barto, nasiib wanaag waan isbaranay, waxaana noqonay saaxiibo caadi ah. Imtixaanadii kadib, buugaygii xasuus qorka ayay ku qortay inay rabto inay la kulanto, balse taasi ma dhicin. Muddo kadib waxay u guurtay xaafad kale. Intaa kadib, iyadoo ku beegneyd xafladda maalinta qalinjabintayda, ayaa qof i soo wacay, waxayna ii sheegtay inay tahay Suleeqo. Wadnahaygu wuxuu u garaacmay si xad dhaaf ah. Wicitaanku wuxuu ahaa in ka yar 5 daqiiqo, balse aniga waxay iga dhignayd wax ka badan 5 saacadood. Waynu is-xiriirin jirnay marmar, balse waan kala yar mashquulnay. Muddo dabadeed ayaa si lama filaan ah waxaa ii soo wacay saaxiibkii Saacid, wuxuuna ii sheegay inay Suleeqo shil gashay, lana dhigay cisbitaalka. Waxaan naftayda weydiiyey, miyaad doonaysaa inaad la kulanto? Waxaan u maleynayay inay noqonayso dhaawac iska yar. 2 cisho kadib ayaan ku soo booqday cisbitaalkii, balse waan garan waayay qofka ila hadlaya in ay tahay iyo inuu qof kale yahay. Waayo waxaan arkay qof bilaatimo ah, wejiguna diirdiiran yahay, afka iyo ilkaha midna aan ku oolin. Waan ka naxay, aad ayaan u ooyay. Kadib waxaan yaqiinsaday inaan jeclahay. Habeennimadii ayaan waxaan u diray qoraal aan ku leeyahay, qofka kaliya ee ka taxadari kara noloshaada waa aniga. Waxaan u soo bandhigay guur. Way qososhay, wayna iga aqbashay. Arrinkii waxaan markiiba u sheegay hooyaday. Way ka naxday, balse aabbahay wuu igu taageeray. Maalmo dabadeed waxaan aaday dhakhtarkii ay ku jirtay. Waxaan halkaas u aaday qalliinka ay maalintaas lahayd awgiis. Waxaana doonayay inaan daawado farxaddeeda marka qalliinka ka soo baxdo. Waxaan bilownay inaynu nolosha waajahno si wada jir ah. Waxaan noloshaydii u bedelay iyada darteed. Waxaana u soo wareegay magaaladii ay deganeed. Markaan imid xaafadeedii, waxaan arkay iyada oo taagan albaabka oo 3 ubax casaan ah gacanta ku hayso. Waxayna isla maalintii ii soo bandhigtay guur, aniguna isla maalintii ayaan mehersaday. Waxaan bilownay qabanqaabada arooska. Dadku waxay la yaabanaayeen guurkeenna, waxayna na weydiinayeen sababta arooska u rabno. Aad ayay u eegayeen wejigeeda iyo muuqaalkeeda. Xitaa waxay weydiiyeen inaanay carruur dhalin, haddii kale ay iyada u ekaanayaan. Balse aniga xaqiiqdii dadka waan ka duwanaa. Noloshaydana wax weyn ayaa iska beddeshay. Alxamdulillaah, maanta waxaan ahay xaaska qaba gabar qurux badan, waxaanan haystaa 2 carruur oo qurux badan. Subaxdii wuxuu waagu noo baryaa anigoo wada faraxsan.